زيد ابن سعنة نكل أورنجري عالم بوها حبر عالم يهوديت بوها نبي الدين كقات عليه الصلاة والسلام حلقي دين كاللقو بالله من إلا عليو يدو آنا لقارين أيو ننكاس النبي فرصة بالله اكتب فرصة عين كيا صحابة النبي سقوا هريرها كالسعودان وسوق مقالة مدينة أي دحمر أيان أيو نبي حق الدميتوك قيم دبو نبي قويسي هنقوريا كقبتي إلى نبي عنده عصادان عمر بن الخطاب سيفت قلك كساري مرقابو نيك يهودي قال الله وحيري يا محمد هداتهين بوري نمكينا عربيد قريشين إن بدن بان إلى النولين إلى معاملون إنه حق بني آذا قاعد كقادتان مسوع لساني أنا حقي يسيبه كيدي مرقابو النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب سيفت الله صباحي يا رسول الله كافر كان يهودي قورتها كقويه يقول فصح مرقابو النبي يقول عمر ما يسيفت هذا قالك كوي عشبو يدي soo dhawow cumarow sidaa si ka duwan ayaan aniga isaguba kaaga baahnayn buu yidhi inaad isagana ku tidhaahdid muddadii daynka in lagu celiyo la isku ogaa maalmo ayaa ka dhimanadee ha gaadho anigana aad igu tidhaahda nebi allow dee daynka dadku kugu leeyihiin dee waxooga iska sii laakiin cumarow sidaa kaamaan helina midii baad seef baad la soo baxdo waad ka nixisee 8 saaco timirana waa intuu igu leeyahay sii labaatanna ugu darbuuri waa intaad ka nixiseen dalfirso gaalada ayaa imika dadkan zamankan dambe ka dhaadhicisay in badan diinta islaamku adduunka seef bay ku gaadhay dagaal may akhlaaq bay ku fiday diinta islaamku boqolkii 90 diinta islaamku waxay ku fiday khuluqun xasan dabeecad wanaagsan dulqaad badan naxariis badan صبر بدن دعاء بدن ددال بدن اوهم بدن اسباب تابو نبي رسالتي سومده كو غارسيناي عمر بن الخطاب نكي بو كعيي بيت المال كي بو كيني انتي سي مركو سيب 20 كلن ugu daray waa kana qaado oo naxay ninka yahuudigi war intana numalihi buu kaydi intan aniga nabiga amar igu siiyay inaan kuugu daro waa biiro oo maxaan lagugu biiriyay sababtaan kuugu biirinina waxa weeyaan waa seeftii ee kuula soo baxeen kaan nixiyay buu nabigu igu yiri ugu abal gudintaas ugu abal cali markaas ninka yahuudigi alaabtii oo dhan intuu dhulka dhigay buu yiri Umar oo Zayd bin Su'na ninka leeyahay ma maqashay markaas uu ma ninka caalimka yahuudeed ha ma ninka baa tahay ha ninka baan ahay oo adoo nin caalim ah oo diintii hore tawraadna wax ka yaqaana oo tawraadna waliba lagu sheegay nabiga sifaadkiisa inuu imanayo maxaa kugu kalifay nabi maxamed jidka dhexdeeda waliba iyadoo aanan la gaarin muddadii deynka in la kala qaato lagu ballamay ilaa deynku waqti buu leeyahay shuruud buu deynku leeyahay lagu kala qaataa aayadda quraanka ugu dheerna deynka ka waramaysa iyadoo xilligii la gaarin maxaa nabiga sidaa ugu dhibaysay buu ku yidhi صفاتك النبية الله شيء أو دن محمد وانكو أركبيدي إلا لبا موياني لبا دا صفان النبي محمد كما سو ظاهر كريسو إلا لا تاب موياني صفاتك بعد حويان جاهلين تمركي حقي سأيكو حد قدبان نبي محمد عليه الصلاة والسلام جهل قال له جيسنا يو جهلدو أي حقي سكو حد قدبيان dulqaad unba nabiga uga ziyaadeen maba carooda buu yidhi waa sifaadka nabiyadu ay leeyihiin carada nabiyada iyo dulqaadkoogana marka la isku qiyaaso waxa qaaliba oo sareeya dulqaadkooga sareeya dulqaadkooga shahaadateynka iga maqal buu yidhi hortaadaan ku laqinaya ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muhammadan cabduhu wa rasuuluh isagoo islaamay oo Umar uu gacanta hayuu nabiga u keenay nabiga hortiisana uu ku ashaatay